maxamed cabdulaahi salaad biibshe waa fanaan misna wariye ah waxa uu ka howlgalaa mid ka mid ah telefishinada Soomaalida ee ku yaala dalka Kenya. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa biibshe waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay isaga oo wariye ah haddana inuu fanka ku biiro sida uu u kala maareeyo shaqooyinkiisa. waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho kuna soo barbaaray waqtigii ugu badnaayn halkaas baan ku noolaa waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee jaamacadeeda waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho xilliyo waxaa jiro aad u adkaa shaqadeeda iyo fankiga iyo jaamacadeeda isku wada 2018 waa anigu markaas fankii soo galay jaamacadda gabagaba ii ahayd in shaqadu ahayd mid aad u adag oo dhanka saxaafadda ah wax walba waxay leeyihiin jadwal haddii aad ugu talagasho noloshan waxay ku habboonta qofka inuu qorshe ka sameeyo tusaale 7 maalin ee asbuucii ku jirta 3 maalin ama 4 maalin haddii aan aado dhanka saxaafadii ama howlihii shaqadii kale 4 ama 3 maalin kale ay soo harayso oo aan ku produce gareeyay heesahayga sidaan u rabo muuqaalada fanku wax sidaas ah ma bagalaansanay misana qofku inuu muuqaal sameeyo cod duuba hees xafida waa intaas saxaafaduna waa idina easy ama fudud sida loo arko qofku waa inuu xog raadiya xogtii oo mataqaana diyaariya iyadoo mataqaana dhameystirna oo la soo istaaga telefishinka marka waa laba shaqo aan isleeyahay waa la isku wadi karaa qofka haddii uu biibshe wuxuu sidoo kale sameeyaa erayada iyo laxanka heesaha wax badan baan ka faahfaahsanaa xilliyada aan soo galay iyadoona erayada qaar aniga aan sameyn karo ama aan urin karo laxamada ugu badan aan ku soo baxay ee dadka ugu barteen ay tahay laxama aniga iga yimid ama iga soo maaxday waan sababaha ii siin fududay hees waxa jirto dadku si qaas u jeedin anigu dheedin aan jeclaan qaar waa heesta la yiraahdo doof dabcan heesuna waxa loo qoraa laba hab in qofku oo ka sameeyo sheeko meel awal ah iyo maskax meel laga abuuro si sax qofku qoto dheer oo soo abuuro ama qofka ka abuuro shakhsiyadiisa heesu jirta aniga saahan igu soo laabanayso jirta waana heesta sidaan ku sheego doof waxaan gaarsaday inaan tangoobayo guri ceelkanaga gurigeed yahay waxaan gaarsaday inaan tangoobayo guri ceelkanaga gurigeed yahay gaarawayo gurahaygu bilay qurqaar iyo joog lagu galaday